haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ahna wasiirkii arrimaha dibadda Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay go'aanka maamulada ay ku garab marayaan go'aanka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee qaadatay. Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ka hadashay go'aankii ay dowladda Soomaaliya Itoobiya ugu dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ka tirsan jabhadda ONLF. wariyahana Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayayna ugu warantay magaalada Muqdisho. runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan lahi inuu arko dalkii oo iska wada horjeeda raadii dawladda dhexe mas'uuliyadii ahayd ee dastuurku siiyay qodobka 54 oo ah qodobadaas hadda qoran inkastoo ay guddiga dastuurka hadda xuquuq dheeraad siiyeen dawladda qodobadaas oo ah 4 waxa ugu horeeya ka koobaad u yahay go'aamada arrimaha dibadda maamulkeeda dawladda dhexe iska leh wixii cilaaqaad lala yeelanayo dawladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaan waxa weeye mas'uuliyadda dawladda dhexe weeyaan dawlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf waxaan u arkaa qalad waxaan u arkaa qaranka dambi laga gelayo in dawladdii marka ay dawladihii ay la midka ahayd ay garab istaagto in maaragtay la dhabar jabinaya mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysa laga hortegayo waxa ay tiri waa gobolkii afraad hadda dawlad goboleedkii afraad waxa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga midna sax kuma aha dawladana in lagu gafo oo kolba laga hor yimaado macnaheedu waxa weeye waa wax laga shaqeynayo oo dawladda iyo dalku inaanay hore u soconin la furfurayo oo kolba meel laga dacwareen lagu hayo saasaan u arkaa maxaa kaga aadan dawladda dhexe faragelinta dawladahan carabtu gaar ahaan imaaraadka sacuudiga ay ku hayaan gudaha Soomaaliya horta dawladaha hadda ishaya qadar iyo afarta dawladood xulafada ah xaaladoodii waa lagu dhex jiraa Kuwait baa si daacadnimo ah ugu dhex jirta oo dhexdhexaad ka ah Mareykankii baa anaguna idin dhexdhexaadinayna Germany waa maqlaysan France madaxweynaha France shalay wuxuu yiri waa maqlaysan meel fiican bay maraysaa heshiisiintoodii iyagii baa dad walaalo ah weeye dad ku wada jira jiisiga weeye waa dad aan kala maarmin waa dad Arab League ku wada jira marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaala waa siyaasado hoose oo iyaga ka dhaxaysa marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay sida mowqifka dawladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku amaanan tahay dawladda Soomaaliyeed ixtiraam badan North Africa oo dhan ba kamida ta kale madaxweynuhu waa kii Masar tagay aad baa loogu soo dhaweeyay aad iyo aad baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen kama ay xumaanin mowqifka Soomaaliyeed way ku ixtiraameen sidoo kale Sacuudiga waa tii wufuud isaga daba noqonaysay marka waxa weeye imaaraadka dad aynu saaxiibnahay oo muddo dheer aynu xiriir lahayn weeye oo ina caawin jiray oo Soomaali badan ku nooshahay oo xiriir fiican inaga dhaxeeyo marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga oo maxaa la gudban dawladda dhexe Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaad because waa heshiinayaan dadka faragelinta lagu hayo maamulada go'aan gaarayaan oo ka imaanay dawladda Carabeed gaar ahaan imaaraadka iyo Sacuudiga faragelin ay dawladahaasi ku hayaan dawladdu waa inay protest ka bixiso waa inay u sheegto waa inay tiraahdo waxyaalaha wixii internal affairs ama arrimaha iyaga gudaha ah waxaan jecelnahay in lagu ixtiraamo odayaasha dawlad goboleedyada madaxweynayaasha kaana بكل احترام aniga tala ahaan iyo intii kulli baan aan ka gaaray maqaam dawladeed experience kan yeeshay waxa weeye ma arag meel dawladihii hoose ama goboladii dawladaha Kenya kala ka soo qaad imika gobolka Wajeer dawladda dhexe Kenya go'aankay gaadho gobolka Wajeer kama hortagi karo uma oran karo ka horjeedna ama dawladdaasi mowqifka qaatay mid ka duwan waxayna waxa weeye waa la kala go'ayaa dadku waa kala socdaan waa la kala diraya marka waa in dadku ay wacyi taas waa inay dareenkaas u yeeshaan lagana hortaga arrimaha caynkaas xogaal baa tahay siyaasi baa tahay dawladda muddo ku jirtay dawladda Soomaaliya adkaysimeedu yar yahay waa dawlad tabar yar dhawaan waxaad ogtahay in la yiraahdo qalbi dhagax baa dawladda Itoobiya loo gacan galiyay doodo weyn baa ka dhashay ilaa haddana maanta ugu dambeysay guddiga baarlamaanka u saaray sidee bay kula muuqata go'aankaas qalbi dhagax shakhsi weeye hase yeeshee wuxuu ka soo jeedaa waxa weeye laambad
sii yarayd oo sii baxaysay oo dhowr boqol oo ilaa 700 oo sanadood halgan Soomaaliyeed from waqtigii ajuuraanka waqtigii Axmed Guray waqtigii sayidkii 77 waqtiga dheer ka soo jeeday Soomaalina dareenkeeda waxa kiciyay tarjumada ay dareenkaas qof xornimo doona hase yeeshee kililka shanaad degdeg go'aan bay gaareen dadkaasi waxay yiraahdeen waxaanu nahay dawlad gaar ah wayda ka maranay Soomaaliya xaqiiqatan development badan bay gaareen oo meel sare ayay marayaan hadda warshadayntii bay galeen dariiqyadii iyo biyihii iyo leydhkii markay gashadeen marka waxa weeye qolo waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay haddii qalad dhacay guddiga maanta la saaray qaladkaas wuu soo saari doonaa ciddii mas-uuliyadda qaadaysa taasaan qabaa laakiin in maaragtay in la gudbiyo aniga shakhsiyan aniga quldaydu ilama toosnayn markii hase yeeshee hadda dawlad jaar aynu nahay iyo dad le annaga mowqifka iyagii waa caddaysanay taasina waa meesheeda marka meeshan waxa weeye labada miisaan baa isgarab socda halgankaana in indhaha la iska tiro maaha waxa weeye Soomaali muddo in badan baa kusoo dhimatay in badan baa hadda danqanaysa oo le maxay ay sidaa ugu dhacday waxaanse kusoo ururinaya arrinkaas dawladda Soomaaliyeed ee yar ee curdunka ee toostay ee kacaysa imika kufaakacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo maartay looga hortago qalbi dhagax ma aha waa kala laba arrimood qalbi dhagax go'aanka waxa ka gaari doonta guddidaas laakiin ma qabo in dawladda lagu jaanis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacday ku hoos gudboon arinta ONLF oo kale marka waxa ay tahay ONLF aniga personally Fawziya ahaan ma qabo inay shakhsi uu noqon karaa argagixiso isagoo laakiin jabhadda xorriyadoonka ahayd qaarna banaan way kala jabeen qaarna gudihii bay galeen oo way maxay ahayd la heshiiyeen dawladda Ethiopia oo dhulkoodii bay dhisteen oo horumar bay gaareen qaarna wali dibadda taagan yihiin oo waxay leeyihiin xorriyadoon baanu nahay annaga iskayaga iyo taqriir masiirkayaga iyo salaf ama yaani go'aanka aanu shakhsiyadda annagaana go'aan ka gaarayna I believe labadaba in lagu ixtiraamo ayagaana tahay in ay ka heshiiyaan oo ay arrinkooda meel saaraan because dagaal joogto ah iyo duulimaad joogto ah dan ugu ma jirto mustaqbalkooda taasi waxay ahayd ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya iyo wasiirkii arrimaha dibadda Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo u waramaysay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle